inkooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay qaar kamida maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyagoona sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay muddadii ay hayeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Togdheer waa nabad qabnaa dhamaantaya ragayga maxaabiista ah oo lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay maalintii dhaweyd meesha la yiraahdo Goojacade adigu waxaan propagandada iyo wax dadka si kala fogeeyay weeyaan wax aan qabno oo liba ma jiraan dhaawacayga ana hadda intaan xirxiran ana ugu dhaawacleeytay anigana inta waleelo tacaalaya ragii kale raaja la soo wada saaray waa la baaray maanta laga bilaabo waxaan leenahay dad goba gacanta lagu dhigay oo nasaba oo si hufan noola dhaqmay oo qaraabadayada iyo ehelkayga dadkii noo imaanayeen noo soo deynayay si qurux badan baan noola dhaqmay waana aragtaan maanta wax laga muuqda ma jiraan sharaf maanta noo laaban ma jirto dadka yaa la sharaf dil waa iga dardaaran dadka yaa la sharaf dilin nalama layn nalama tacad jir dilin nalama tacadiyin wasoo marxaatiga ma idin dadka kale oo bulshada kale oo gobolada ku sugan halkaan gobolkan dad anaga abaan kula kulmay oo jooga oo si fiican loola dhaqmayo oo si fiican noogu imaanaya maxaabiista kale oo halka ku sugan dadkooda iyo ehelkooda si fiican hawlo kulmaan oo loo sii daayo oo hala kulmaan sida anaga loogu sii daynayo oo kale ayagoo anaga nala mid yihiin waqti salaan kadib waxaan ka warbixinayaa anagu waxaan ahayn maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii 18 bisha tan Laascaanood halkan hadda laba bari baan joognaa waa barwaaqaysanahay ragaalkan sagaal baan nahay sagaalkan wixii dhaawac ahaa waa la daweeyay wixii hadda waxa sayeen si wanaagsan baa loola tacaalaya inteeda kana waa barwaaqaysanahay waa caafimaadkooda waa fiican yahay waa daawanaysaa in khiyaaray marka dadka magaxmada iyo Soomaaliya wadanka marin waxaan leenahay warkaas halka ku haro khiyaaray haddana ragu waa barwaaqaysan yahay gurigooda baa laga soo qabtay gurigooda way joogaaneen sida loola socdo dhamaan Soomaaliya meel joogto waa isku mid